iyadoo maalmihii dambe uu sii kordhayay shakiga laga qabay in dawladda Soomaaliya ay wada xaajooda hoose ka gasho kiiska badda Soomaaliya ay leedahay Kenyana ay muranka gelisay ayaa haddana waxaa shacabka ka imaanayay su'aalo dhaxalgal ah kuwaas oo ay ku cabirayeen shakiga ay ka qabaan afgarad hoose inay wada galeen madaxweyne Farmajo iyo Uhuru Kenyatta kadib kulan ku dhexmaray magaalada New York ee dalka Mareykanka. kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya kadib waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweyne Farmajo uu ogolaaday in dib loo dhigo dacwadda kiiska badda ilaa bisha Juun sanadka 2020 taasi oo shaki weyn ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed. hadalhaynta ugu badan iyo su'aalaha ka imaanaya shacabka waa arrimo ku geedaaman ogolaanshaha madaxweyne Farmajo ee dib u dhigista dacwadda badda Soomaaliya oo meel xasaasi ah maraysa. waana markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee adduunka u dirto siyaasiyiintaas oo macnaheedu yahay in kiiska badda Soomaaliya la siyaasadeynayo. shacabka Soomaaliyeedna lagu mashquulinayo dayactirka taalooyinka halka looga jawaabi lahaa su'aalaha ay ka qabaan arrimaha badda. saacadihii u dambeeyay waxaa si aad ah la isula dhexmarayay su'aal ka timid madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud oo horey u sheegay inuusan ka tanaasulin taako ka mid ah badda Soomaaliya. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir kamida biyaha Soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaya. qoraalkan uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray mudane Xassan Sheikh ayuu ku yiri sidan maxaa ku dhacay kiiskeena badda ee maxkamadda ICJ mise tani waxay bilow u tahay heshiis ka baxsan maxkamadda ayuu yiri Xassan Sheikh. dawladdeenu waa inay banaanka timaada oo ay jawaab ku habboon siisaa shacabka Soomaaliyeed ayuu sii raaciyay. dhanka kale waxaa hoos u dhac weyn ku yimid kalsoonida shacabka ay ku qabaan madaxda sare ee dalka kadib talaabooyin la yaab leh oo ka baxsan sharciga dalka oo muddooyinkii dambe ku kacaysay dawladda iyadoo dawladda Farmaajo cadaadis ku saartay inay shaqada ka tagto Muna Sharmaan oo ahayd qareenada Soomaaliyeed ee difaacaysa kiiska badda Soomaaliya. shacabka Soomaaliyeedna waxay cabsi weyn ka qabaan in madaxweyne Farmaajo uu kiiska badda u bedesho muddo kororsi.